kani ma ahan aroos balse waa xaflad furiina oo ka dhacay wadanka Mauritania waxa loogu hambaliyeenayaa furinkeedii Mina Baba waa 23 sano jir oo xuquuqda haweenka u dooda wadanka Mauritania waxay u dabaaldegaysaa 4 bil kadib markii la furay Mauritaniyiintu ma ahan kuwa ka walaacaya in la furo balse waa isugu hambaliyayaan marxaladda cusub ee galayaan haddii ninka uu ka tago waxa ay galayaan marxalad cusub xafladda furinka waa mid laga yaqaan wadanka Mauritania waxa uu bilaabanaya maalmo cusub waa loo cilaan saaraya dhar cusubna waa loo iibinayaa Mina waxay u guursatay kadib markii ay qoyskeedii ay ku qasbeen inay guursato muddo kadib labadooda waxa ay ku heshiiyeen in ay kala tagaan inkastoo ay mucaaradnimo ay kala kulantay ehelkeedii balse markii dambe waa la ogolaaday in la furo Mina barteeda Facebook ayay waxa ay kaga hadashay arrimaha eedeynta ay uga imaanaysa furiinku ma ahan ayay tiri wax la isugu ceebeeyo haweenka balse waa dhibaato dhamaatay iyo nolol farxad oo bilaabanaysa waxyaabo waxaan arkayay oo niyad-jab ah iyo kuwa kale oo iigu duceynaya kuwa kale oo ii sheegaya in furiinku uu yahay mid xalaal ah oo Alla ogol yahay dawlado badan ayaa isku khilaafan xafladaha noocan oo kala ah qaybka ma ahan wadanka Mauritania in haweenka la furo gabadhan waxay la dhalatay Mina waxa ay leedahay waxay u tahay nolol cusub oo bilaabanaysa Mina tii hore ay ka soo baxday mid cusub ayaa u bilaabanaysa kaliya ma ahan haweenka waxa uu dabaaldegaya furiinka ragga xitaa waa ay ka qayb qaataan farxadaasi waxa jirta in heese iyo sidoo kale sidii xafladaha arooska oo kale loo ciyaaro gabadha la soo furay wadankaas Mauritania waxa ay ka lacag badan tahay mid aan la guursan waxa loogu hambaliyeenayaa furiinka Mina Baba xafladaha noocan oo kala wadamo qaarkood kama jiraan balse Mauritania waa laga ogol yahay kaliya uma dabaaldegayso furiinkeedii balse hadda waxa uu yahay marxalad cusub oo ay dhahayso nolosheeda ayuu bilow ay u tahay waxa dhammaan laga aqbalay deegaanadeedii in la furay balse wadankaas waxa mamnuuc ka ah in gabadha la soo furay kaligeedii ay noolaato hadda waxa aan la noolahay ay leedahay qoyskeygii adiga maxay kula tahay xafladaha noocan oo kala